caruurtii ku dhalatay masaafo ama qudbasiro wacal lama dhihi karo waa xaaraan qadcana culummada muslimiinta afarta madhabood iyo qayrkood qof yiri waa wacal ma jiro mana banaana in la yiraahdo waa wacal waa xaaraan qadcana in wacal la yiraahdo diintana sal kuma laha caruurtaas waa nasab sababtu waxay tahay laba arrimood qofka muslimka waa kala fahmaa diintuna waa naxariis laba qof oo zina ku heshiiday iyo laba qof oo yiraahdeen aan isguursanno jaahiliin oo waliba waqtigii horeeto waxa dhici jiray 90 kilomitir gabar iyo wiilin isla lugeeyaan oo caguhu baxaan oo la daalo oo naftu qabato meel ay ku dhacaan ma waxa dadkaas marka intaas lugeynaa ma xaraana u lugeynaya maya waxay u haystaan in xalaalta wuxuu 90 kilomitir uma lugeeyeen hadday xaraam doon yihiin marka waa dad xalaal rabay laakiin dariiqu ka lumay oo jaahilnimo heshay sidaas darteeda maadaama ay xalaal doonayeen jahlina ku dhacay culummada muslimiintu dhammaan waxay nasgareeyeen ilmahaas waa nasab waxa lama dhihi karo diinta sal kuma in waxa la yiraahdo qofka waxa la yiraahdaana asaga ilaahay hortiisa ka jawaabay ha soo haray gabar kasta iyo nin kasta ee ay u cadaato walil aanay shalay isku guursadeen inaan diinta sal ku lahayn waa ajnabi waana xaaraan inay is wada joogaan bal inay is arkaan xaaraan ayagoon gabadhu xijaabnayn sababta ajnabi kale yihiin mar haddii diintu u cadaatay xaydanba ku wada joogayaan ilaa aayadda quraan fiiriya wama kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim nin muumin ah iyo gabar mu'minad ah uma banaana xalaal uma ahan mar haddii ilaah iyo rasuul amarkooda uu yimaado oo ilaah iyo rasuul wax amraan inay khiyaar ayagu qaataan oo yiraahdaan alla iyo rasuul miyaan adeecna mase sida kalaan yeela khiyaar ma leh wax ma kala dooro karaan waa inay ilaah iyo rasuul adeecaan hadday ogaadeen in nabi maxamed yiri sallallahu alayhi wasallam ayyuma imra'atin nakahat bighayri idni waliha فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل gabar kasta oo guursata waligeeda idankiisa la'aantiis nikaaxeedu waa baadil ma banaana nin ilaah rumaysan oo allah ilaahnimo u rumaysan oo rasuulka muxammad sallallahu alayhi wasallam rasuulnimo u rumaysan oo diinka islaamka diin ahaan u rumaysan inuu yiraahdo baadilkan anu ku jooga baadilkaygaasan iskaga baaqi ahana maya uma banaana labo isma qabaan ha kala leexdeen gabadhu cidaha tirsato nin kale ha guursato waa mid waysan ahayn hadday iyagu israbaan ha isguursadeen oo hadda nikaax aan baadil ahayn oo sharci ah isguursadeen waliba waxaan idin sheegayaa diintu waa naxariis hadday gabadhu doonto inay nin kale guursato ilaa ninkaanu ma qabee cidda laga raba ilaa ninkaanu hadduu la dhaqmay wey ninkaan hore hadduusan la dhaqmin cidda ma jirto waxay ka cidda tirsata lama arko ninku ma qabo laakiin hadday wada dhaqmeen waa inay cidda ka tirsato sidii gabar caadi oo la furo kale waa inay cidda u tirsato laakiin hadday ninka laftirkiisa rabto inay guursato wax idda laga ma looga baahan hal daqiiqad uma baahna daqiiqada ugu horeyda la isku nikaaxay sidoo wada joogay